qaadayno iyo doorka kala duwan oo la lahaanayo deeqaha waxbarashada hadday imaanayaan sida ma arkaysa aan u kala qaybsanayno loogu kala qaybinayo iyo doorka ay ka cayaarayso dowlad goboleedka markay noqoto matalaadda wasaaradahaas oo intersigooda ama howlahooda dhabta ah qaabkan aan u matalayno marka heshiisyo hoose oo saas oo isafgarad ah waan leenahay heshiis kaleento ma arkaysa qaabka waxbarashada loo maamulay oo dalkan ayadana ugu jira manhajkii waxbarashada dalka dad badan baa isweydiinaya halkuu ku dambeeya wasiir manhajkii waa la daahfuray waad ogtahay waxaa noo daahfuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxay idaan filaya bishii juun sanadkii hore kadib waxaan bilownay qoraalkii buugaagta markaan muqararkii asna dejinay marka hadda buugaagtii aan qornay ilaa iyo galaaska afraad buugaagtii ka yimid manhajka ayaan diyaarinay hadda koldhow aan rabna haddii ilaa yidhaahdo ayagana inaan daahfur u samayno marka sanadkan waxay noqonaysaa ardayda dalka oo manhajkaasa ay bilaabayaan inay wax ku qaataan buugaagtan cusub ayay wax ka baranayaan marka diyaarintii buugaagtii aad wadaan weli diyaarintii buugaagtan hadda aan wadna waan qoraynaa way dhammaadeen ilaa galaaska afraad waan qornay galaaska afraad ilaa iyo secondary schoolka form 4kana hadda la bilaabay ayagana shaqadooda oo waxaan kuu sheegaa sanadka intuusan dhammaanin ka hor ayaan rabnaa inaan soo saarno arrintan sharciga hadda horyaala baarlamaanka muxuu yahay ma sharci hagaya wasaaradda iyo jaamacadaha dalka ku yaala iyo shuruucda dhan oo waxbarashada dalka miyaa ku jirta waxaa la yidhahdaa sharciga waxbarashada guud ee dalka isugu jira waxbarashada heerkeeda koowaad iyo heerkeeda labaad iyo tacliinta sare marka waa sharcigii waxaan lagu kala maamulayo wasiir aadan maasanta shalay waxaa jirtay wasaaradda maaliyadda barnaamij ay soo bandhigayeen oo dakhliga wasaaradaha in si toos ah ay ugu dhaceen bangiga dhexe wasaaraddan qayb baa ka ahayd meelaha la soo bandhigayo oo arrintaas dhaqaalaha bal faahfaahin naga sii arrintaas waxay ahaaday arrin oo go'aan uu ku gaaray golaha wasiirada wasaaradaha dakhliga ururiya in laga bilaabo bishan juun hadda soo socota koodeeda inta ka horeysa lagu wareejiyo wasaaradda maaliyadda waayo wasaaradda maaliyadda keliya ayaa u haysata mandate inay dakhli qaado marka taasina wuxuu ahaa go'aan golo wasiir annagana waxay ahayd khasab in ma arkaysa aan fulino marka waxaa la wixii dakhli wasaaraddeena ay qaadi jirtay oo shahaadooyinka ay ka mid yihiin oo registrationka jaamacaadka iyo hay-adaha tacliimiga waxaas ay ka mid yihiin waxaasoo idil waxaa mas-uul ka noqon doonto wasaaradda maaliyadda mas-uul waxay ka noqonaysaa waxaan ka wadnaa waxay ku dhacayaan bankiga dhexe ku dhacayaan marka annaga keliya servicekaan samaynaynaa waxa khidmadii iyo waxa la wixii u baahnay un baan samaynaynaa markii aan aragno in ma arkaysa dakhligaas taasna waa mid kow la rabo dakhliga in ma arkaysa kor loogu qaado dakhliga dawladda oo idil in ma arkaysa la mid ah si ma arkaysa aan u ogaano waxa ma arkaysa soo geli karo saddex in ma arkaysa dawlad wanaag iyo ma arkaysa wixii hufnaan ay meeshii ka dhacdo oo dunidana aan tusno in ma arkaysa systemkeena uu u shaqeynayo oo hadda si fiican u hana qaaday oo sida dunida ay u shaqeyso kale uu shaqeynayo marka saas darteed annagana khasab ay nagu tahay inaan fududeyno oo ma arkaysa dhankeena aan ka qayb qaadano in aan wax ku biirino ama aan horseed ka noqono dalkii in ma arkaysa uu ka dhaco dawlad wanaag masuq garnay gabagabadii wasiir waxaa rabaa laba su-aal oo su-aalahayga kuwa ugu dambeeya ah oo barnaamijkan aan kusoo xiri doono inkastoo wax badan wasaaraddu aad iga soo sharaxday xaaladda dalka u maraya waxbarashada dalka iyo imtixaanaadka intaba haddase mararka qaar waxaa jiri karaa cilado soo baxa ciladaha ugu waaweyn ee wasaaraddaada waxbarashada soo wajaha maxaa ka mid wallaahi waxay ahayd inaad ii sheegtid ciladaha annaga orto ciladaha wasaaradda ku imaanaya way badan yihiin aad u badan yihiin waxay ka bilaabanayaan ilaa iyo ma arkaysa wasaaraddii shaqaalihii uu ku yar yahay wasaaraddii aanan haysanin hanti ku filan oo howlihii aan ku qabanno
dalkiioo ma arkaysaa nabadgelyadii iyo waxaasi ay iska liidato maxaan kuu sheegaa khidmada iyo servicekana laga rabo oo aad u weyn oo aanan gaari karin marka waa bayna alard wasamaa waxa ma arkaysaa nalaga rabo oo aan ka gaabinayno marka iyada waxaas ay jirto haddana waxaa waaye khasab inaan u shaqeyno daqii waxbarasho wasaaraddu heli jirtay ha noqdaan dalalka caalamka iyo dowladaha dariskaba in ay ka hesho wasaaradda waxbarashada gaabis ma ku imaanin بالعكس دقيقة ويكوردين هذا يا سنة والبنا ما أركيس دلوا البنت ونسيجري وحبي كسي ترى عن قاركود مركا جابس كم إيمان سيوم على سمرك وحنو مارينا دور جرنوان شيء وحن كو سالينا ترى الأرضية ده كسب بحذي فون فورك waxaan u qaybinaa dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo dalka idil marka dal walba dawlad goboleed walba ama deegaan walba tirada ardayda ka soo baxday boqolkiiba deeqda waxbarasho aan ka helnay qaybta ugu soo aaday ayay helayaan marka saasaan u qaybinaa ugu dambeyn wasiir maxaad ku talinayd waxaan ku talinayaa dee soomaalida in ma arkaysaa ay dowladooda hantiyaan oo ay taageeraan ay adkaystaan ay ku kaalmeeyaan madaxdooda iyo dadka ah in ay jid wanaagsan ayagana ay ku horseedaan taas macnaheedu waxa waaye in tilmaamo la siiyo khalad haddii galaan loo sheega laga qabto ayagana ay ma arkaysaa kalsooni ku qabaan nafsadooda iyo hogaankooda labadaba dadka Soomaalida in ay iska ilaaliyaan isdabamarinta iyo masquumaadka kaasoo ma arkaysaa keenayo in aan horay u kici wayno oo dawladeena la degayo oo ragaadinayo masquumaadku waa dhibaato weyn uu leeyahay oo halkii shilin oo masquumaadka ah wuxuu ka salfanayaa ugu yaraan 20 ama 30 shilin oo kale waa fasaad marka Soomaalida waxaan leeyahay ha isku kalsoonaadeen nafsadooda ku kalsoonaadeen dalkooda ku kalsoonaadeen dadkooda oo ma arkaysaa hogaanka u haayo ha ku kalsoonaadeen ha tilmaameen ha toosiyeen hawaaniyeen marka in ma arkaysaa dadkay ahaadaan kuwa ma arkaysaa meel u wada jeedo oo ilaashado dalkan uu Ilaahay u siiyay gaarka iyo calankan iyo lacagtan ka dhaxayso iyo waxyaabahan ay wada leeyihiin inay ilaashadaan oo ay muujiyaan inay yihiin dad ma arkaysaa soo jeedo taasaan kula dardaarmaa ayna shaqaystaan shaqada waa muhiim ayadana wasiir aad ma santa dawdayaal halkaas ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijka diiradda STN toddobaadkan aan ku eegnay waxbarashada dalka iyo waliba imtixaanaadka xilligan aan la hadlaynba ardaydu ay u fadhiyaan shahaadiga dugsiga sare kaas oo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya sanadkan si isku mid ah ay kaga qaadayso koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya sida wasiirku noo sheegay ilaa iyo 27,000 oo arday ayaa imtixaanka sanadkan ka qayb galaysa وزيرك waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan ayaa barnaamijka martuha wasiir aad ma san
dhabha arintaas dhowr jeer waa laysoo weydiiyey dhabha arintaas dhowr jeer waa laysoo weydiiyey dhowr jeer waan ka hadlay meelo badan waan ka sheegay kow horto jaamacaadka dalka ku yaalo oo badan ma wada xumo qaar waxaa jiro markaysaa waxani ay dhab ka tahay oo tayadooda inay hagaajiyaan raba oo dalkan raba inay wax ku soo kordhiyaan ayagana ay si fiican isku dhisaan noqdaan institution ama jaamacad ama hay'ad ma arkaysaa tacliin sare oo rasmi ah dalkan wax ku soo kordhisa cilmi baaris wanaagsan samaysa dalkan wuu u baahan yahay qaar saas ujeedadooda ay tahay oo runtii aan u jeedno oo isdhisaya way jiraan kuwaas aadan u soo dhawaynaynaa waanan u hambaliyaynaynaa qaar waxaa jira marka ayagana rabaan in ma arkaysaa saasoo kale ay noqdaan laakiin awoodooda ay yar tahay oo laga yaaba macrifadooda iyo waxaan qaabkii u samayn lahaayeen ayadana ay yar tahay oo dadaalayo oo daalaa dhacayo kuwaasi waxaan rabnaa ayagana inaan toosino hadday toosayaan oo ciddii toosta socoto kuwa marka u yimid in halkan ay caruur lacag ka gurtaan khayaano iyo ma arkaysaa iska dabamarin iyo waxaas samaynayo kuwaas waan ka qabanaynaa dadka ma arkaysaa waa laga joojinayaa marka way socotaa hawshaas oo ma arkaysaa hadda dulbadiiba qaylaha soo yeeryeerayso meelaha qaarkood sharciga waxbarashada haddii ilaa yidhahdo hadda baarlamaanka ku jiro markuu gudbana si ma arkaysaa toos ah ayaa waxaas annagoo cuskanayno sharcigaas ayaan u hirgelin doonaa hadda marka la xisaabtan aad wadan shaqadu ma socotaa waa arrimahaas quseeya aad iyo aad way marka laga reebo intaasoo jaamacad dalku yaal ma jiraan ama ma la dhihi kara waxaa jira jaamacado si qaas ah wasaaraddu wada shaqayn buuxday la leedahay على الأساس جامعة إدل وزارة خصبي كتايني لا شقيان أنا خصبي متاين على شقيان حتى إن نوجانا بالماشي وحكوها يعني مركا معلومات أيان كهلنا وحي قبطان ويسود ديوان قليان مركيسا وحاسو إدوان صنع قورة الأساسي مركيسا ديبارتمنتس كما فاكولتي كلا دواني يسميان dadka wax u dhiga iyo heerarka kala taagan yihiin waxa soo idil macluumaad saas waan ka haynaa wada shaqayn saas way naga dhaxaysaa marka way jiraan laakiin qaar ma arkaysa si rasmi ah wasaaradda ula shaqeeyo oo dhab ay ka tahay wada shaqaynta dhab ay ka tahay inay ma arkaysa ay horumariyaan institution-kan ay hayaan oo tacliin sare oo rasmi ay ka dhigaan kuwaasna way jiraan inkastoo ay sheegteen baristan iyo arrimahan aad wadaan haddase weli ma dhacdo wasiir intaad wasaaraddan wasiirka ka ilaa joogtay in jaamacado qaar oo markaa baarteen aa ogaateen tayadooda aan wanaagsaneen oo ruqsadii lagala laabtay maya ilaa hadda ma jirto taas waxa waaye dhowr arrimood darteed horta in hay-ad tacliin sare iyadoo markaas rabto inay ujeeddada niyadda markii hore loo fiirinayo annaga wax ka dambeeya ma fiirinayno waxa rasmi waxa aan aragno uma fiirinaynaa loo sameeyay in ma arkaysa dalka wax ku soo kordhiso in markiiba laga wareego ruqsadda waa khalad ma arkaysa si aad uga wareegtid waa inaad ma arkaysa process iyo habraac aad haysatid aad kanaysid marka waqti ma arkaysa aad ka qaadaysid oo been cashiyad waxa aan ma jirto waa in fursad aad siisid qofka hadduu rabo xataa in wax sameeyo waa inaad ma arkaysa aad siisa 6 bilood sanad 2 sanadood aad fiirisaa waxaan inay dhab ka tahay in kale marka taas darteed waqtiga horta oo aan rabnay inaan waxaan ku eegnaa ma waxaan aan ku fiirino hadiiba cabasho saas ay jirto oo loo baahnaanayo wali ma arkaysa aan la gaarin labo shuruucdii tacliinta sare ayadana wali soo dhamaanin marka hadii qof aad rabtay inaad taqiiqadin inaad ka sharcigii loo iskan lahaana sax maaha داوديل ولي واحد داونيسان برنامجكii diirada STN oo toddobaadkan oo marti lagu yahay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya qeybihii dhexe ee barnaamijkana waa kana soo gaarnay wasiir hadaan dib u laabno wareysigeeni xiriir wada shaqeyneed aan leeyihiin wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada ilaa intee gaarsiisantahay wasaaradda waxbarashada
waxay ka tirsan yihiin xukuumadda federaalka si wanaagsan aan wada shaqeynaa si markaysaa joogto ah ayaan wada shaqeynaa waxaan leenahay kulanno qorshaysan oo markaysaa sanadkii aan kulanna oo weliba marba meel aan ku kulanna markii ugu dambeysay hadda waxaan isugu nimid magaalada dhuusamareeb oo ah markaysaa xarunta dowlad goboleedka galmudug markaasi dhow oo markaysaa aada u firfircoon aan wada shaqeynaa wada shaqeyn aad u fiican naga dhexeyso wada shaqeyntaas oo hadda wasaaradda waxbarashada ka kooban wasiir wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedyada sharciyo idin dhexeeya oo labada wasaaradood ku wada shaqeynayaan ma jiraan waxaa jira shuruuc dee guud oo dalka u degsan oo ma arkaysaa waxbarashada tilmaamayso iyo sida loo maamulayo iyo cidda maamulayso kaas wuu na kala hagayaa labo waxaa kaloo jiro ma arkaysaa heshiisyo hoosoo aan samaysano oo ku saabsan si gaar ah wax uga sii sheegaya imtixaanadii goortaan qaadayno iyo sidaan u qaadayno iyo doorka kala duwan oo la lahaanayo deeqaha waxbarashada hadday imaanayaan sida ma arkaysa aan u kala qaybsanayno loogu kala qaybinayo iyo doorka ay ka cayaarayso dowlad goboleedka markay noqoto matalaadda wasaaradahaas oo interestigooda ama howlahooda dhabta ah qaabkan aan u matalayno marka heshiisyo hoose oo saas oo isafgarad ah waan leenahay de heshiis kaleento ma arkaysaa qaabka waxbarashada loo maamulayay oo dalkan ayadana ugu jiraa manhajkii waxbarashada dalka dad badan baa isweydiinaya halkuu ku dambeeya wasiir manhajkii waa la daahfuray waad ogtahay waxaa noo daahfuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaydaan filaa bishii juun sanadkii hore kadib waxaan bilownay qoraalkii buugaagta markaan muqararkii asna dejinay marka hadda buugaagtii aan qornay ilaa iyo galaaska afraad buugaagtii ka yimid manhajka ayaan diyaarinay hadda kol dhowaan rabna haddii ilaa yidhaahdo ayagana inaan daahfur u samayno marka sanadkan waxay noqonaysaa ardayda dalka oo idil manhajkaasa ay bilaabayaan inay wax ku qaataan buugaagtan cusub ayay wax ka baranayaan marka diyaarintii buugaagtii aad wadaan weli diyaarintii buugaagtan hadda aan wadnaa waan qoraynaa way dhammaadeen ilaa galaaska afraad waan qornay galaaska afraad ilaa iyo secondary schoolka form 4kana haddaa la bilaabay ayagana shaqadooda oo waxaan kuu sheegaa sanadka intuusan dhammaan ka hor ayaan rabnaa inaan soo saarno arrintan sharciga hadda horyaala baarlamaanka muxuu yahay ma sharci hagaya wasaaradda iyo jaamacadaha dalka ku yaala iyo shuruucda dhan oo waxbarashada dalka miyaa ku jirta waxaa la yidhahdaa sharciga waxbarashada guud ee dalka wuxuu isugu jiraa waxbarashada heerkeeda koowaad iyo heerkeeda labaad iyo tacliinta sare marka waa sharcigii waxaan lagu kala maamulayo wasiir aad ma soo shalay waxaa jirtay wasaaradda maaliyadda barnaamij ay soo bandhigayeen oo dakhliga wasaaradaha in si toos ah ay ugu dhaceen bangiga dhexe wasaaraddan qayb baa ka meelaha la soo bandhigayo oo arrintaas dhaqaalaha bal faahfaahin naga sii arrintaas waxay ahaaday arrin oo go-aan uu ku gaaray golaha wasiirada wasaaradaha dakhliga ururiya in laga bilaabo bishan juun hadda soo socota koodeeda inta ka horeysa lagu wareejiyo wasaaradda maaliyadda waayo wasaaradda maaliyadda keliya ayaa u haysata mandate inay dakhli qaado marka taasina wuxuu ahaa go-aan golo wasiir annagana waxay ahayd khasab in ma arkaysa aan fulino marka waxaa la wixii dakhli wasaaraddeena ay qaadi jirtay oo shahaadooyinka ay ka mid yihiin oo registrationka jaamacaadka iyo hay-adaha tacliimiga waxaas ay ka mid yihiin waxaasoo idil waxaa mas-uul ka noqon doonto wasaaradda maaliyadda mas-uul waxay ka noqonaysaa waxaan ka wadnaa waxay ku dhacayaan bankiga dhexe ku dhacayaan marka annaga keliya servicekaan samaynaynaa waxa khidmadii
iyo waxa la wixii u baahnay baan sameeynaa markii aan aragno in ma arkaysa dakhligaas taasna waa mid koow la rabo dakhliga in ma arkaysa kor loogu qaado dakhliga dawladda oo idil ma arkaysa la mid ah si ma arkaysa aan u ogaano waxa ma arkaysa saddex in ma arkaysa dawladda wanaag iyo ma arkaysa wixii finaan meeshii oo dunida in ma arkaysa systemka uu shaqeynaa hadda si fiican wana qaasa inay u shaqeyso marka sidaan khasab markaa inaan fududeyno oo ma arkaysa dhankeena aan qaadano in aan wax ku yeerno ama aan horseed ka noqono dalkeen markaysa uu ka dhacaysa dawladda wanaagsan keen Soomaaliya ku shaqeynaa hadda si fiican wana qaasa inay u shaqeyso marka sidaan khasab markaa inaan fududeyno oo ma arkaysa dhankeena aan qaadano in aan inkastoo wax badan wasaaraddu aad uga soo sharaxday xaaladda dalka maraya waxbarashada dalka imtixaanaadka inta qaar waxaa jiri faacilada inaad ii sheegtid ciladaha inkastoo wax badan wasaaraddu aad uga soo sharaxday xaaladda dalka maraya waxbarashada dalka imtixaanaadka inta wasaaraddiyo shaqaalihii uu ku yar yahay wasaaraddiyo aanan haysanin hanti ku filan oo howlihii aan ku qabanno dalkiioo ma arkaysaa nabadgelyadii iyo waxaasi ay iska liidato maxaan kuu sheegaa khidmada iyo servicekana laga rabo oo aad u weyn oo aanan gaari karin marka waa bayn al-ard wasamaa waxa ma arkaysaa nalaga rabo oo aan ka gaabinayno marka iyada waxaas ay jirto haddana waxaa waaye khasab inaan u shaqeyno daqii waxbarasho wasaaraddu heli jirtay ha noqdaan dalalka caalamka iyo dowladaha dariskaba inay ka hesho wasaaradda waxbarashada gaabis muku imaanin بالعكس دقيقة ويكوردين هذا يا سنة والبنا ماركيس طلب بنتو نسيجري وحبي كسي ترى قاركود مركا قابس كم إيمان سيوم على سمرك وحنو مارينا دور جرنوان شيء وحن كو سالينا ترى ده أرضيدا كسب بحذي فون فورك waxaan u qaybinaa dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo dalka idil marka dal walba dawlad goboleed walba ama deegaan walba tirada ardayda ka soo baxday boqolkiiba deeqda waxbarasho aan ka helnay qaybta ugu soo aaday ayay helayaan marka saasaan u qaybinaa ugu dambeyn wasiir maxaad ku talinayd waxaan ku talinayaa dee Soomaalida in ma arkaysa ay dawladooda hantiyaan oo ay taageeraan ay adkaystaan ay ku kaalmeeyaan madaxdooda iyo dadka hogaamiyaashooda ah in ay jid wanaagsan ayagana ay ku horseedaan taas macnaheedu waxa waaye in tilmaamo la siiyo khalad haddii galaan loo sheego laga qabto ayagana ay ma arkaysa kalsooni ku qabaan nafsadooda iyo hogaankooda labadaba dadka Soomaalida in ay iska ilaaliyaan isdabamarinta iyo masquumaadka kaasoo ma arkaysa keenayo in aan horay u kici wayno oo dawladdeena la degayo oo ragaadinayo masquumaadku waa dhibaato weyn uu leeyahay oo halkii shilin oo masquumaadka ah wuxuu ka salfanayaa ugu yaraan 20 ama 30 shilin oo kale waa fasaad marka Soomaalida waxaan leeyahay ha isku kalsoonaadeen nafsadooda ku kalsoonaadeen dalkooda ku kalsoonaadeen dadkooda oo ma arkaysa hogaanka u haayo ha ku kalsoonaadeen ha tilmaameen ha toosiyeen ha waaniyeen marka in ma arkaysa dadkay ahaadaan kuwa ma arkaysa meel u wada jeedo oo ilaashado dalkan uu Ilaahay u siiyay gaarka iyo calankan iyo lacagtan ka dhaxayso iyo waxyaabahan ay wada leeyihiin inay ilaashadaan oo ay muujiyaan inay yihiin dad ma arkaysa soo jeedo
taasaan kula dardaarmaa ayna shaqaystaan shaqada waa muhiim ayadana dhabha arintaas dhowr jeer waa la soo weydiiyay wasiir aad ma sata dhowr jeer waan ka hadlay meelo badan ka sheegay soo gabagabeynaya barnaamijkan diiradda STN todobaadkan ku yimid waxbarashada dalka iyo dalka xanaadka xilligan aan la hadlayn ardayda ay u fadhiyaan shahaadada dugsiga sare kaas oo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya sanadkan si isku mid ah ay kaga qaadayso koonfurta ay dalka Soomaaliya sida wasaaradda sheegana ilaa iyo 20 arday ayaa imtixaanka sanadkan ka jaamacad ama hay'ad ma arkaysa xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan dalkan uu soo kordhisay baaris wanaagsan samaysa dalkan uu u baahan yahay qaar saas ujeedadooda ay tahay oo runtii aan u jeedno oo isdhisaya way jiraan kuwaas aadan u soo dhaweynaynaa waanan u hambaliyeynaynaa qaar waxaa jira marka ayagana rabaan in ma arkaysaa saas oo kale ay noqdaan laakiin awoodooda ay yar tahay oo laga yaabay macrifadooda iyo waxaan qaabkii u samayn lahaayeen ayadana ay yar tahay oo dadaalayo oo daalaa dhacayo kuwaasi waxaan rabnaa ayagana inaan toosino hadday toosayaan oo ciddii toosta socoto kuwa marka u yimid in halkan ay caruur lacag ka gurtaan khayaano iyo ma arkaysa iska dabamarin iyo waxaas samaynayo kuwaas waan ka qabanaynaa dadka ma arkaysa waa laga joojinayaa marka way socotaa hawshaas oo ma arkaysa hadda dulbadiiba qaylaha soo yeeryeerayso meelaha qaarkood sharciga waxbarashada haddii ilaa yidhahdo hadda baarlamaanka ku jiro markuu gudbana si ma arkaysa toos ah ayaa waxaas annagoo cuskanayno sharcigaas ayaan u hirgelin doonaa hadda marka xisaabtan aad wadan shaqadu ma socotaa waa arrimahaas quseeya aad iyo aad way marka laga reebo intaasoo jaamacad dalku yar ma jiraan ama ma la dhihi kara waxaa jira jaamacado si qaas ah wasaaraddu wada shaqayn buuxda la leedahay على الأساس جامعة هذا إدل وزارة خاصة كتاي إني لا شقيان أنا خاصة بين متين على شقيان حتى إن نوجانا بالماشي وحكوها يعني مركا معلومات أيان كهلنا وحي قبطان ويسود ديوان قليان مركيسة وحاسو إدل والله صونا قورة الأساسي مركيسة ديبارتمنتس كما فاكولتي كل دواني يسميان dadka wax u dhiga iyo heerarka kala taagan yihiin waxa soo idil macluumaad saas waan ka haynaa wada shaqayn saas way naga dhaxaysaa marka way jiraan laakiin qaar ma arkaysa si rasmi ah wasaaradda ula shaqeeyo oo dhab ay ka tahay wada shaqaynta dhab ay ka tahay inay ma arkaysa ay horumariyaan institution-kan ay hayaan oo tacliin sare oo rasmi ay ka dhigaan kuwaasna way jiraan inkastoo ay sheegteen baristan iyo arrimahan aad wadaan haddase weli ma dhacdo wasiir intaad wasaaraddan wasiirka ka hela joogtay jaamacado qaar oo markaa baarteen aa ogaateen tayadooda aan wanaagsaneen oo ruqsadii lagala laabtay maya ilaa hadda ma jirto taas waxa waaye dhowr arrimood darteed horta in hay-ad tacliin sare ah iyadoo markaas rabto inay ujeeddada niyadda markii hore loo fiirinayo annaga wax ka dambeeya ma fiirinayno waxa rasmi waxa aan aragno uma fiirinaynaa loo sameeyay in ma arkaysa dalka wax ku soo kordhiso in markiiba laga wareego ruqsadda waa khalad ma arkaysa si aad uga wareegtid waa inaad ma arkaysa process iyo shuruudo iyo habraacyo badan aad haysatid aad cuskanaysid marka waqti ma arkaysa aad ka qaadaysid oo been cashiyad wadaxa ana ma jirto waa in fursad aad siisid qofka aad rabo xataa in wax sameeyo waa inaad ma arkaysa aad siisa 6 bilood sanad 2 sanadood aad fiirisaa waxaan inay dhab ka tahay in kale marka taas darteed waqtiga horta oo aan rabnay inaan waxaan ku eegnaa ma waxaan aan ku fiirino hadiiba cabasho saas ay jirto oo loo baahnaanayo wali ma arkaysa aan la gaarin labo shuruucdii tacliinta sare ayadana wali soo dhamaanin marka hadii qof aad rabtay inaad talaabo ka qaadin waa inaad wax u cuskataa marka sharcigii loo cuskan lahaana wali aan sax maaha dawadayaal weli waxaad daawanaysan barnaamijkii diiradda STN oo toddobaadkan oo marti nagu yahay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qeybihii dhexe ee barnaamijkana waa kana soo gaarnay wasiir haddaan dib u laabno wareysigeeni xiriirka wada shaqeyneed ay la leeyihiin wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada ilaa intay gaarsiisan tahay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada waxay ka tirsan yihiin xukuumadda federaalka
si wanaagsan aan wada shaqeynaa si ma arkaysaa joogto ah ayaan wada shaqeynaa waxaan leenahay kulanno qorshaysan oo ma arkaysaa sanadkii aan kulanna oo waliba marba meel aan ku kulanna markii ugu dambeysay hadda waxaan isugu nimid magaalada Dhuusamareeb oo ah ma arkaysaa xarunta dowlad goboleedka Galmudug marka si dhow oo joogto ah oo ma arkaysaa aad u firfircoon wada shaqeynaa marka wada shaqeyn aad u fiican naga dhaxayso wada shaqeyntaas oo hadda wasaaradda waxbarashada ay kala dhaxayso ka sokow waxa sharciyo iyo nidaamyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka waxaa hoos imaanaya wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedyada sharciyo idin dhaxeeya oo labada wasaaradood ku wada shaqeeyaan ma jiraan waxaa jira shuruuc guud oo dalka u degsan oo ma arkaysaa waxbarashada tilmaamayso iyo sida loo maamulayo iyo cidda maamulayso kaas wuu na kala hagayaa labo waxaa kaloo jiro ma arkaysaa heshiisyo hoos oo aan samaysano oo ku saabsan si gaar ah wax uga sii sheegay imtixaanadii goortaan qaadayno iyo sidaan u qaadayno iyo doorka kala duwan oo la lahaanayo deeqaha waxbarashada hadday imaanayaan sida ma arkaysaa u kala qaybsanayno loogu kala qaybinayo iyo doorka ay ka cayaarayso dowlad goboleedka markay noqoto matalaadda wasaaradahaas oo interestigooda ama howlahooda dhabta ah qaabkan aan u matalayno marka heshiisyo hoose oo saas oo isafgarad ah waan leenahay heshiis kale intoo ma arkaysaa qaabka waxbarashada loo maamulayo oo dalkan ayadana ugu jiraa manhajkii waxbarashada dalka dad badan baa isweydiinaya halkuu ku dambeeya wasiir manhajkii waa la daahfuray waad ogtahay waxaa noo daahfuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaydaan filaa bishii Juun sanadkii hore kadib waxaan bilownay qoraalkii buugaagta markaan muqarrarkii asna dejinay marka hadda buugaagtii aan qornay ilaa iyo galaaska afraad buugaagtii ka yimid manhajka ayaan diyaarinay hadda kullu waan rabnaa haddii la yiraahdo ayagana inaan daahfur u samayno marka sanadkan waxay noqonaysaa ardayda dalka oo idil manhajkaas ay bilaabayaan inay wax ku qaataan buugaagtan cusub ay wax ka baranayaan marka diyaarintii buugaagtii aad wadaan wali diyaarintii buugaagtan hadda waan qoraynaa way dhamaadeen ilaa galaaska afraad waan qornay galaaska afraad ilaa iyo secondary schoolka form 4kana hadda la bilaabay ayagana shaqadooda oo waxaan kuu sheegaa sanadka intuusan dhamaanin ka hor ayaan rabnaa inaan soo saarno arrintan sharciga hadda horyaala baarlamaanka muxuu yahay ma sharci hagaya wasaaradda iyo jaamacadaha dalka ku yaala iyo shuruucda dhan oo waxbarashada dalka miyaa ku jirta waxaa la yidhahdaa sharciga waxbarashada guud ee dalka wuxuu isugu jiraa waxbarashada heerkeeda koowaad iyo heerkeeda labaad iyo tacliinta sare marka waa sharcigii waxaan lagu kala maamulayo wasiir aad ma soo مسؤول waxay ka noqonaysaa waxaan ka wadnaa waxay ku dhacayaan bankiga dhexe ku dhacayaan marka anaga kaliya service kan sameeynayna waxa khidmadii iyo waxa la wixii u baahnay baan sameeynayna markii aan aragno in ma arkaysa dakhligaas taasna waa mid koow la rabo dakhliga in ma arkaysa kor loogu qaado dakhliga dawladda oo idil ma arkaysa la mid ah si ma arkaysa aanu ogaano waxa ma arkaysa soo gali karo saddex in ma arkaysa dawlad wanaag iyo ma arkaysa wixii hufnaan ay meeshii ka dhacdo oo dunidana aan tusno in ma arkaysa anaga systemkeena uu u shaqeynayo oo hadda si fiican u hana qaaday oo sida dunida ay u shaqeyso kale uu shaqeynayo marka saas darteed anaga khasab inuu tahay inaan fududeyno oo ma arkaysa dhankeena aan ka qayb qaadano in aan wax ku biirino ama aan horseed ka noqono dalkii in ma arkaysa uu ka dhaco dawlad wanaag masuqmaasuqina la dagaalamo aniga soo garnay gabagabadii wasiir waxa rabaa laba su'aal oo su'aalahayga kuwa ugu dambeeya ah oo barnaamijkan aan ku soo xiri doono inkastoo wax badan wasaaraddu aad iga soo sharaxday xaaladda dalka maraya waxbarashada dalka iyo imtixaanaadka intaba hadda mararka qaar waxaa jiri kara cilado soo baxa ciladaha ugu waaweyn ee wasaaradda waxbarashada soo wajaha maxaa ka mid
والله waxay ahayd inaad ii sheegtid ciladaha anaga orto ciladaha wasaaradda ku imaanaya way badan yihiin aad u badan yihiin waxay ka bilaabanayaan ilaa iyo ma arkaysa wasaaraddiyo shaqaalihii uu ku yar yahay wasaaraddiyo aanan haysanin hanti ku filan oo howlihii aan ku qabanno dalkiyo ma arkaysa nabadgelyadii iyo waxaasi ay iska liidato maxaan kuu sheegaa khidmada iyo servicekana laga rabo oo aad u weyn oo aanan gaari karin marka waa bayna al-ard was-samaa waxa ma arkaysa nalaga rabo oo aan ka gaabinayn marka iyada waxaas ay jirto haddana waxaa waaye khasab inaan u shaqeyno دقيقة waxbarasho wasaaraddu heli jirtay han naqdaan dalalka caalamka iyo dawladaha dariska in ay ka hesho wasaaradda waxbarashada gaabis ma ku imaanin بالعكس دقيقة way kordheen hadda ya sanad walbana ma arkaysa dal walba intuu nasii jiray waxbay ku sii daraan qaarkood marka gaabis kuma imaanin say u maraysan marka waxaan u maareynaa dhowr jeerna waan sheegay waxaan ku saleynaa tirada ardayda ka soo baxday form 4ka waxaan u qaybinaa dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo dalkoo idil marka dal walba dawlad goboleed walba ama deegaan walba tirada ardayda ka soo baxday boqolkiiba deeqda waxbarasho aan ka helnay qaybta ugu soo aaday ayay helayaan marka saasaan u qaybinaa ugu dambeyn wasiir maxaad ku talinayd waxaan ku talinayaa dee soomaalida in ma arkaysa ay dowladooda hantiyaan oo ay taageeraan ay adkaystaan ay ku kaalmeeyaan madaxdooda iyo dadka hogaamiyaashooda ah in ay jid wanaagsan ayagana ay ku horseedaan taas macnaheedu waxaa waaye in tilmaamo la siiyo khalad haddii galaan loo sheega laga qabto ayagana ay ma arkaysa kalsooni ku qabaan nafsadooda iyo hogaankooda labadaba dadka Soomaalida in ay iska ilaaliyaan isdabamarinta iyo masquumaadka kaasoo ma arkaysa keenayo in aan horay u kici wayno oo dawladeena la dagayo oo ragaadinayo masquumaadku waa dhibaato weyn oo leeyahay oo halkii shilin oo masquumaadka ah wuxuu ka salfanayaa ugu yaraan 20 ama 30 shilin oo kale waa fasaad marka Soomaalida waxaan leeyahay ha isku kalsoonaadeen nafsadooda ku kalsoonaadeen dalkooda ku kalsoonaadeen dadkooda oo ma arkaysa hogaanka u haayo ha ku kalsoonaadeen ha tilmaameen ha toosiyeen hawaaniyeen marka in ma arkaysa dadkay ahaadaan kuwa ma arkaysa meel u wada jeedo oo ilaashado dalkan uu Ilaahay u siiyay gaarka iyo calankan iyo lacagtan ka dhaxayso iyo waxyaabahan ay wada leeyihiin inay ilaashadaan oo ay muujiyaan inay yihiin dad ma arkaysa soo jeedo taasan kula dardaarmaa ayna shaqaystaan shaqada waa muhiim ayadana wasiir aad ma santa dawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabinayaa barnaamijka diiradda STN toddobaadkan aan ku eegnay waxbarashada dalka iyo waliba imtixaanaadka xilligan aan la hadlaynba ardaydu ay u fadhiyaan shahaadiga dugsiga sare kaas oo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya sanadkan si isku mid ah ay kaga qaadayso koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya sida wasiirku noo sheegana ilaa iyo 27,000 oo arday ayaa imtixaanka sanadkan ka qaybgalaysa وزيرك waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan ayaa barnaamijka martay wasiir aad ma